TikTok mucjisada baraha bulshada muuqaallo qodobka ciyaara heesa iyo majaajilooyin gaagaaban ayay caan ku tahay barta TikTok iyadoo ay si gaar ah u soo jiidatay dhalinyarada daafaha caalamka ku nool. TikTok ayaa ah ab ama barnaamij uu qofku si bilaash u adeegsan karo waxayna TikTok lagu macnayaa inuu yahay YouTube yar. Muuqaalada majaajilada fariimaha qoraalka ee gaagaaban ayay sidoo oo kale dadka isticmaala abkaani TikTok soo dhigi karaan. Qofka TikTok isticmaala markuu helo kun qof oo bartiisa ku xiran waxa uu barnaamijku ogolaanaya in uu barnaamijyo toos ah u la wadaago taageerayaashiisa isla markaana uu aqbalo hadiyado dijitaal ah oo uu lacag ku bedelan karo. Laga soo bilaabo 2019 abkaani waxa uu kaalmaha ugu horeeya uga jiray barnaamijyada la soo dejisto ee baraha bulshadu ay ku xariirto. Heer caalami waxa soo dejistay ku dhawaad 2 bilyan oo qof halka ay si toos ah u isticmaalaan dad tiro ahaan gaaraya 800 milyan oo qof. TikTok macluumaad aad u badan ayuu kana aruuriyaa dadka isticmaala barta waxaana xogahaasi ka mid ah muuqaalada ay daawadaan iyo fikirka ay ka dhiibtaan, xogta ku saabsan goobta uu qofku joogo, nooca telefoon iyo inta barnaamijka uu isticmaalo, muusikada uu adeegsado mararka ay fariimaha qorayaan. Qaar ka mid ah xog aruurinta barnaamijkaasi ayaa kor u qaaday soo jiidashada waxaana dhowaan lagu soo daray koobiyeynta iyo gudbinta fariimaha ay dadku wadaagaan. Balse waxay arrintaasi saameyn ku yeelatay abkan kuwa lamida sida Reddit, LinkedIn, New York Times, BBC News App. Xogta ay aruurisa TikTok ayaa u dhigma mid la mid ah xogta ay kaydiso barta ay bulshadu ku wada xiriirto ee Facebook. Shiinuhu waxa uu ka mid yahay dalalka leh adeegga internetka oo aad u xadidan iyadoo caan ku ah in ay muwaadiniinteeda ka ilaaliso waxyeelada dhinaca internetka uga imaanaysa. TikTok gudaha Soomaaliya dadka isticmaala waxay u badan yihiin dhalinyaro. Dadka isticmaala badanaa waxa ay soo galiyaan muuqaallo maadays leh walow ay jiraan dhalinyaro si khaldan u adeegsada. No. Haddii aad meel kaliya fariisato oo aad in yar mobilkaaga ka dhex gasho TikTok, shaki kuma jiro in muuqaalada ugu horeeya aad ku qoslayso. Laba cabdooya gurigan ii joogto ee wala odayga la yaaban hadan cunugiiriska igu fasaadiyay. أمس قفي العقبيل واقصيا مشاهد ترتيب وفري هاي أبد دوينة تينا لك العشاء وحك العشاء أنا ملك دقنا والله وافرة أنا هداي فرت فرمة يجيب يصدي فرت ولكن عبوا شركة بركملية أنت هاي أبك العلي براديك الماتانيو أنا مشيت فريق العلي فيرسو هاي أبو اللي بدينك يدو تغير أسوقي حتى اسك فريستو إيجار كيجي إنها دو أوي هاي وأوجي هي بدل كيجي إنها كرسد وحدة ملبا rag iyo dumar waa iswada ruxayaan waxayna muuqaaladooda dul saaran heeso. kuwana hadallo dad kale sharaftaan raadinayno kama raadinayno qabqablayaal waxaan ka raadinaynaa shacabka Soomaaliyeed oo maadsantii qof weyn oo mas'uul ah marka TikTok lagu arko inta badan dhalinta isticmaasha yaab ayay la noqotaa. Barnaamijkani TikTok oo la xiriiriyo dawladda wadanka Shiinaha waxa uu ka mid yahay shirkadaha ay saameysay xiisada ka dhaxaloosan madaxweynaha wadanka Shiinaha Xin iyo dhigiisa Mareykanka Trump. dalalka Mareykanka iyo Australia waxay sheegeen in ay xayirayaan TikTok halka Hindiyana ay barnaamijkaasi ka saartay kaydka laga soo dejisto abka ee dalkaasi Hindiya ee loo yaqaan App Store-ka. wakiilka macluumaadka iyo siraha wadanka UK-na waxa uu sheegay in uu barnaamijkani baaritaan ku wado. TikTok waxa sahlan in haddii aad muddo wado soo gelinta muuqaallo aad leedahay oo xiiso leh in ay durba ku baranayaan dadka adeegsada. haddii aad TikTok damacdo in aad asxaab badan oo follow aad ku yeelato ka maarmi maysa in aad mararka qaar u dhardhigato muuqaallo aan horey lagaaga baran oo inta badan aysan jeclayn dadka wanaagaaga jecel si aad u soo jiidato kuwa aan ku aqoon ee doonaya in ay mar walba TikTok ka helaan muuqaallo xiiso leh. ariya TikTok aabbaacun iyo meeshii laga keenay gaasho ku dhashoos wacaliyuunka war maalin kasta video ku dhiga ilaa kun follow kun ilaa aniga idinla hadlaya dhawaan waxaan ku soo biiray TikTok si aan u kala kiciyo bartaydaana waxay dantu ii geysay inaan iska duubo muuqaallo aanan ku fakari jirin ka hor ku soo biiristaydii TikTok oo waxa ka mid ah